Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada asxaabta. Waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan dhammaantiin meel walba ay joogtaan. Waxaan noo socda kooraskeenii graphic design-ka Adobe Photoshop qaybtiisa beginner-ka ah. Waxaan u gudagalnay sida la wada socotay waxaan u gudagalnay qaybta design-ka ah. Maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeena sagaalaad ee qaybta design-ka ah. Hore waxaan usoo qaadanay cashirada qaybta bilowga ah. Maanta waxaan qaadan doonaa sida loo design gareeyo ID card design. ID card design-kan oo horteen ka muuqda maanta inaan design gareyno. Marka waxaan rajeynayaa inaad soo practice gareyn doontaan oo asaga noocan oo kale ah soo sameyn doontaan. Ka sidaan yahay waxaan isla arki doonaa ID card-kan cabirkiisa iyo qaabka uu sameeyo isla wada arki doonaa. Marka hore Photoshop markaas aan soo dhaxgalno waxaan taaban doontaa Control N oo soo sameeysto new document loo sameeysto hore isku soo baranay. Qaybta marka imaado new documentiga meeshaan qoran magaca ku qoranaysa ID card designer hadana sameyno ID designer iska dhayna ID card design markaas aan ugu qorno qaybta marka cabirkiisa waa kana meeshaan oo maxaa tagay oo qaybtan kala furaysa oo cabirada meeshaan waxa ka soo dooranaysa marka cabirkan oo inches ah ID card sidiisan waxa loo isticmaalaa cabirkan oo inches ah qaybta widthkan waxa waayadana 2.125 widthka waa 2.125 qaybta height-kiisana waxa waaya waa 3.375 waa sidaas daiman haddii aragtana jijif ka dhigtana waa kana uu isbeddelaa cabirka inta ku jira xagga aad anaga maanta waxaan rabnaa sameyno qaybta oo istaaga oo jooga halkaas ku dhufanaysa qaybtan oo imaanaysa marka oo resolution-kiisa 300 ka dhiganayna oo inuu quality fiican yeesharno qaybtan waa color mode-ka RGB si daynaa maadaama uu yahay wax social media preview inaan isticmaalo karno haddii aragtina daawacdan waxaa loo isticmaalaa CMYK oo hore isku soo baranay marna inaan ku sii dheeraano cabirada markaas aan si saxdo waxa taabanaysa qaybtan ku qoran tahay create markaas aan u dhufno waa kana cabirkii oo hore arkaysan oo inta ku saarnay cabirka hore iyo cabirkan waa isku mid oo sidaas ku noqonaya marka waxaan soo qaadanaynaa loo inta qaybtan ku noqonaysa soo qaadanaysa inta ku noqon qaybta failka ku qoran tagaysa place ku sii dhufno place markaas aan u dhufno qaybta oo loogada soo qaadanayna anaga meesha ay ku talada yaqaano warsa halka marka u soo dhigto ka bacdina waxa tagaysa qaybtan oo shape ku qoran tahay color-kana loogada muhiimada u soo qaadan waa color-ka qaybtan oo shape ku qoran tahay ku dhufanaysa Eclipse ka soo qaadanayso markaas u soo qaato halkan ku fidinaysa markaas u fidiso waa qabanaysa move tool ka soo dooranaysa koraas aan u wadaysa marka color-kana ka dhigno color u soo dooranayna qaybtan ku dhufanaysa qaybtan color-kiisa ka dhigna midkan marka uu control J lana control J markaan dhigo control J wax loo oo copy saas kula wada aragno copy waa ina color ka bedelnaa midkan oo hadda color-ka nooc kale ah waa hoos marinayna oo color ka bedelnay qaybtan waxa tagaysa layerska asaga qabanaysa hoos u dhigaysa marka waxaan rabnaa in halkaas saas uu soo muuqdo qaybtan waxay isticmaalaysaa falaara asii hadana tagayna control J lana qaybtan qabanaysa oo halkan rabnaa inaan saan rabnaa inaan soo bixino oo sidaan rabnaa inaan ka dhigno laba qayb markaas aan ka dhigno oo qaybtan halkan keeno qaybtan kale halkan keeno loogadana wax yar hoos soo dhigna halkan iska soo dhigna waxa meesha qaybta maxaa ku noqonaysa shapeska qaybta shapeska ku noqonaysa ka bacdina meesha oo Eclipse tagaysa halkan ku fidinaysa markaas sidaan dhado color-ka ka dhigin kartaa oo qaybta color-ka ka dhigin kartaa wax muhiim ah color-ka sawir la xilinaaya qaybta maxaa tagaysa marka oo stroke tagaysa stroke way laga dhigaysa ama color ku qaniya ka dhigin kartaa muhiimad maaha midka ka dhigtina ka dhigto color ku qaniya ka dhigin kartaa markaas sidaan soo dhaano waxay yareynaysa haddii aragto ku qanci wayso saa marka dhaano أنا أدم حسوق سوق أو استرابة حرس كيرين ساعة
اشتراك ilaa inta ku qancisa ka dhigin kartaa. Hadda marka waxaan rabnaa inaan soo gelino inta wada gudbino design kala sawir rabnaa inaan soo gelino qaybtan aad tagaysaa sawirka meesha ku yaala yaqaano anikana rabnaa inaan soo gishto sawirka si loo dhexgelin cashirkii ka horeeyay wahay hadda ma isla arki doonaa clip masaan ku sameyn doonaa qaybtan layers ka tagaysaa layers marka soo tagto qaybtan asaga tagaysaa right kaliya leedahay right kaliya marka dhado clip maska leedahay oo sidaas loo dhexgeliyaa qaybtan stroke waxaan ka dhigi doonaa oo hadda soo muuqdo stroke markaan ka noocana ka dhigi doonaa xawaas soo yar muuqda oo scroll saad marka ka dhigno title-kiisa ku qor doonaa loogada horta kalarka ka bedeli doonaa iyada wayda ka dhigi doonaa loogada wayda ka dhigi doonaa oo kormarin doonaa marka sababta u arkin meeshan iyada u hooseyso oo kormarin doonaa kormar loogada halka saaranaysaa waxaa marka siiskeeda ku daraysaa siiskeedan ku daraysaa inta arta ka dhigin kartaa adeeg ugu xiran tahay tan marka waxaad tagaysaa marka title-kiisa qoraynaa oo wuxuu qabto halkaana ku dhufanaysaa marka oo qaybta fontiga tagaysaa farta aan isticmaalayo waxaa la yiraahdaa Montserrat oo in soo diri doonaa qaybtana tagaysaa farta aan isticmaalayo waxaa la yiraahdaa Montserrat oo in soo diri doonaa saa u isticmaashaana markaasina dhano meesha waxaa ku qoraysaa marka magacaada nin walba magaciisa la rabo inuu kusoo qorto magacaada inuu u sameyso dhikaarkaas magacaasa ku qoraysaa halkan oo waa title-kii iyo qaybta koowaad magacaadana waa ku qoran kartaa anaga hadda waxaan ku qoraynaa sida kii hore kale bas magacaada ku qoran kartaa Muhammad Ali waxaa artaas kaga qoran kartaa magacaada ku qoran kartaa oo adiyaan leedahay magacaada annagana ku qornay qofka magaciisa waa kana qofkan wuxuu qabtan waa rabaa laga rabo inuu meesha ku qorto qofkan wuxuu qabto waa laga rabaa halkan inuu ku qorto sana oo title-kiisa asaga tagaysaa horto qaba in kala weynaadaan aan rabaa hawaya sidaan aan leenahay oo soo dhigaysaa marka meesha hoos waxaa laga rabaa marka title-kiisa ku qoraysaa wuxuu qabtaa graphic designer aan leenahay saa marka u qorno xogaa marka title-ka asaga waa regular ama ka dhigaysaa farta saa ila yeelanaysaa tisa ila la rabo inuu yarato oo midkan kale inay isla ekaadaan maaha saa marka dhano hoos u dhaweynaysaa wax yar qaybtan kale ku qorayna marka ID meeshan waa rectangle tagaysaa qaybta shapes tagaysaa rectangle ku dhufan meeshan waxaa weeye shape la soo dhiganayna shape marka saan soo dhigano kalarka waxaan ka dhigi doonaa midkan laba kalar la isticmaalaysaa shaygan marka oo design-ka marka laba kalar isticmaalayso wuu soo baxayaa design-ka saas ku soo baxaya laba kalar ka badan ka dilmaya design-kaas oo mu soo baxaya quruxiisa mu soo baxaysa laba saa marka dhana asagana la koobi ka bixinaa wax yar yaray saa marka dhano oo yar halkan soo dhiganay round ka dhig heer round sidaas ka dhiganay bis asaga u yeel doona marka waxaa u yeel doonaa stroke is white ka dhig ilaa halkan laba iskaga daysan doonaa ilaa laba marka sidaas iskaga dayna sidaan dhihi doonaa marka sidaa noqdo qaybta marka information-ka ku qori doonaa qaybta sida marka u dhacay iyo dhiigga qofkii iyo ID card numberkii wax dhan halkan ku qori doonaa sida waqti noo dheeraan marka soo koobi doonaa oo halkan tagi doonaa waa kan halkan inoo qoriyo marka noodkan ku diyaarsanay koobiga soo leen marka adina qoran karta oo filayaa taasina dhano oo qaybtan tagaysaa automatic ka dhigin doonaa أنا halkan aan ku diyaarsanay waxaan isticmaalayna Montserrat aragtaan waa simi doontaa markaadi marka asagana saxaysaa marka saan leedahay qaybta u horeysa waa ID numberki kasan ku qorna ID numberki dhiig waa aragtaan waa O plus qaybtan kale waa numberka marka qaybtan waa xilli la qaatay ID card-kan waa 2000 taariikhda maanta waaye cashirkan duubaya
waa 27 21 bisha toddobaad. Qaybtan kalena waa xilli uu dhacayo oo isla sanadka dambe waaye, xilli uu dhacayo waaye oo sanadka dambe. Marka ID card-ka oo qaybta frontiga sidaan loo sameeyo oo istaaga, waxaan rajeynayaa inaad soo practice garan doontaan oo ku soo celcelin doontaan intaanu noogu egi cashirkeena. Marka sida loo save gareeyo isla arki doonaa. Waxaan rajeynayaa inaan dhameynay. Qaybta intaan ka tagin waxaa ku qoran doontaa meeshaan. Intaan ka tagin meeshaan waxaa ku qoran doontaa website ahaan aad si qoran kartaa website karta. Website karta si qoran kartaa meeshaan. Farta tagaysa oo tan ku soo leenahay. Meesha fonti farta tagaysa marka meeshaan tagaysa. meeshaan tagaysa waa si qoranaysa marka www. magacaaga ku qoran kartaa marka meeshaan waxaa ku qornaa Muhammad.com. wax saas iska qoranaysaa ka camal si qorto kabacdina waxaa soo dhigan doonaa qaybta hoose. meeshaan hoose iska dhigan doonaa wasa aragtaan saan oo noqday. wixii waxaa isla arki doonaa marka sida loo save gareeyo oo sida loo save gareeyo labada qaab PNG ahaan iyo qaab oo maxaa isla arki doonaa qaab PNG ahaan iyo qaab oo PSD ahaan oo file sida loo save gareeyo isla arki doonaa. qaabka hadda u horeeya waa qaabka sida file ahaan marka loo save gareynayo waayo oo marka aragtina hadhow kala soo qaadan kartaa. qaybtan oo save as marka tagnayadana waa sawirka maxaa ka dhiganaysaa PNG oo sawir caadi bisa ka dhigaysaa oo hadhow marka laga bedeli karo waa preview bis. Okay, marka dhaano waa kana noo save gareeyada banaanka marka u soo baxno qaybtan download halkaan dhiganay meesha marka ku dhufano waa kana marka sawirka sidaan noo noqday. kana marka sidaan ku soo baxay baalkii qof walbana waxaa laga rabaa inuu soo sameeyo oo ku soo practice gareeyo oo ku soo diro groupka. cashirkeena maanta intaas ku eegay. waxaan rajeynayaa inaad soo practice garan doontaan ku soo celin doontaan inta cashir la mid ku kulmi doono. waxaan kaga tagayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.